Assalamu alaikum. I don't know ilay maqlay in kale. Assalamu alaikum. Khayr iyo barwaaqo aan idin rajeynayaa marka hore. And dhammaantiin, wow. Bahalkan waa addictive mystery life-kani. Adoo iska soo taagan un baa bay sarkaysaa. Anyway, waxaan u soo noqday maanta. It's not about the project-gii shuqulkuma laha. And waxaan akhriyay comments-kii marka qaar badan oo idinka mid ah waxay yiraahdeen hadalka intaad nagu quruur xusun baad naga tagtaa ee dadka lama sheekaysatido waa ka qaaday walaal Cabdiqaadir waad wada salaamantiin walaal marka hadalka wax naga sii bay yiraahdeen laakiin I don't want to talk about the project waxa maanta igu kalifay fiidiyahan inaan soo galo ma rabine inta badan ma daawado Facebook waxbaan ku soo yara tuuraa dabadeetana dib baan uga cararaa xataa comments-ka inta badan ma eego unless qof soo taagareeyo aan garanayaa si fiican may maqlaysaan kulligiin oh good okay perfect thank you laakiin marmar bay dadka qaar ii soo diraan waxyaabo dhacdooyin dhacay oo ku saabsan waxyaabahan ay dadkeenu soo geliyaan Facebook run ahaantii mid iga naxisay ayaan la kulmay xalayto arrin qofaan garanaya ii soo diray oo aan isiri malaa waa wax maaragtay dee dadkaad garanayso waxooda waad eegaysaa ay kuu soo diraan marka wadaad buu ii soo diray ka hadlaya gabadh ninkeedii ka sheekaynaysa oo arrin aada u fool xun I'm sure kulligiin waad garanaysaan arrintan ka hadlayo gabadh tiri ninkayga baan ugu soo galay oo xaalad kale ku dhex jira inta badan waxaan Facebook uga warwareegaa because waxaan jecelahay inaan dhigahayga ilaashado inaan indhahayga ilaashado waayo wax kaa naxiyaad intaa arkaysaa runtii arrintaasi wallaahi aada iyo aada bay iiga naxisay oo ii welwelgelisay dad badan oo Facebook-geenan aada u soo gala oo social media aada ugu jira waan maqlaa sheekooyinkooda laakiin ma daawado mana dhigaysto inta badan mar koobaad waqti uma hayo bahalkanna waa lagu waashaa waad ogtihiin aniga hadeerba markaan dhowr jeer life soo galay soo taagan marka waan iska ilaaliyaa oo waxaan is dhahdaa yuu waqtiga kaa luminin xataa TV ma lihi 10 sannadood iminka TV maan lahayn waana ka raystay wax badan baan qabsaday intii TV la'aanta aan ahaa waayo markaan wax badan oo ku mashquuliyo oo stay tuned taa lagu leeyahay aan ku mashquulsanayn waxyaabo badan oo danahaaga baad qabsanaysaa wax badan oo waxaad adigu doonaysuun baad doonanaysaa oo aad markaa dee adigu aad dooratay it's kind of like love you know qofkaad doonayso un baad doonanaysaa maaragtay dadka kalena you don't care anyway waa fadxiyo wax walba inay caashiq soo dhex gelisay jeceshahay anyway walaalayaal waxyaabaha aan ka yaabay waxay tahay maxaynu ugu badannahay inaynu wax walba abuse garayno social mediahu waxay calaykum assalaam santuur cabdallah santuur cabdallah walaalayaal xataa maalin kasta qofku hadduu soo galo social media wax badan oo wanaagsan baynu ka kala faa'iidaysan karnaa oo isku weydaarsan karnaa xataa waynu debate garayn karnaa xataa waynu maaragtay isku yara canaanan karnaa laakiin mahmaah baa jirta soomaaliyadoo tiraahda doqontu meesha laysku laayo in lagu kala tegay bay moodaa haddii laysqabto ama carab iyo labadan baa isugu dhawo way isqaniinaan ninkii naagtays qabaa waa sidaas oo kale ehelku waa sidaa asxaabtu waa sidaa haddii laysqabto si kasta oo laysugu baaba'o muxuunbaa layskula hadhaa maxaynu ku naqaanaa all or nothing wax la yidhaahdo aynaan waxba la kala hadhin oo isku baaba'no oo aynaan waxba xeerin marka aynu isqabanno gabadha caruurteedii baa ka ag ooyeysay waxaa ku hadlaysay
xataa hadday run ahaan lahayd oo run tahay ilaahay baa nagu warmahaynaa soo ma aha inaad intaad afkaaga qarsato naxdin waaba meel aan jaan iyo cidhib dhigayba waa la waayi lahaa adna inaad halkaas soo istaagtaad sheegaysaa midda kale arrintan ah meeshan maraykan waaye ama waa maraykan ama waa wadamadii reer galbeedka meeshii baas laga raysay freedom baa la haystaa wada ilaahay subxaana watacaala kii ku abuurtay soo kuma arko xagaad ka geli this is very serious qof baa isqabanaysaan ama ninkaaga ha ahaato ama ehel kale ha ahaado inaad baabiso ood qofka naftiisii iyo akhlaaqdiisii iyo maaragtay qofnimadiisii aanad waxba ula hadhin subxaan allah we have to stop this behavior inaguna waxyaabaha foosha xun message baa isoo dhacay raalli ahaada email waxyaabaha foosha xun walaalayaal ha gudbinina ilaah baan idinku dhaarshay ilaah baan idinku dhaarshay wixii cay iyo ceebays iyo isxagxagad ah iyo qabyaalad iyo qashin ha gudbinina wixii wanaagsan aad isleedihiin waxbaa laga baranayaa dadka kale bal facebook imika u fiirto waxyaabaha dadku had iyo jeer isu gudbiyaan millions and millions ku daawadaan ama hundreds of thousands of people waa waxyaabaha positive-ka things that uplift people maaragtay hadallo wanaagsan hadallo baritaar iyo gubaabo leh waxyaabo badan oo aad wax ka baranaysid wax cay iyo ceebays iyo isxagxagad isu gudbinaya iyo nin dirac soo gashaday iyo inagun baa leynahaya what's going on waa maxay we have to stop that adduunku siduu u gaaban yahay baan idinka sheekeynaya oonu micno u lahayn berigan minnesota ku cusbaayan u soo guuray ma degani hadeere ayaan laba habloodon jecelahay baa midna meel bay meherad ku lahayd midii kalena waanu israacnay inantii kale aanu aadnay annagoo meeshii joogna ayaa inan kale noo soo gashay inantii kale markay noo soo gashay baa inantii lay barayo hablihii mid kamid ah inantii barta waxay ku tiri heblaayo inantani waa gabadh reer somaliland oo habaryarna waad u tahay isbarta gabadhii baa markaa intay saa ii egtay anigu markiiba waxaan ku yidhi habaryar salaamu calaykum barasho wanaagsan habaryar gabadhii intay saa ii egtay bay waxay igu tidhi gabadhii kale waxay tidhi gabadh aada isku reer somaliland tihiin weeyaane gabadhan iska taqaaniin soomaalidu iska kaftanaa mogta markaasay gabadhii kale saa intay eegtay tiri annagu iskuma nihin somaliland haygu odhan isku meel baa ka timaadeen annagu ma dadka la haystaha u ah baanu nahay reerka waan iska aamusay kaftan baan moodayay laakiin serious bay ka ahayd gabadhii adigu xoogaa meeshii gabadhii kale labadoodii baa yaro dhibeyd gareeyey anigu waxaan ku idhi dee anigu adaaba iga xiga cid walba habaryartii baadba tahay hooyaday qoyskeedu aniga cid walba waa iga xigaa marka maxaad ii fogeynaysaa baan ku idhi habaryar dee hay fogeynin aniga laakiin meel kale ay ka cadhaysnaydoo runtii hadallay aada iigu yaro tuurtuurtay 2 week kadib ayay gabadhii kale iskaayo bartay gabadhii baa horta markaanu tagnay bay waxay igu tiri gabadhaasi waa reer khaatumo I think badankiinu waad garanaysaan khaatumo amba waan iska ahay waan ahay reer khaatumo aan ahay reer puntland baan ahay reer soomaaliya aan ahay reer somaliland baan ahay I'm everywhere maaragtay meel walbaan u dhashay soomaaliyad baan ahay at the end of the day laakiin soomaalidu de waa taqaaniino xagga aabaha ka yimi baa lagu riixayaa adigu calaa kulli xaal inantii baa ila soo hadashay waxay tiri gabadhan waa gabadhaha maaragtay arrintan somaliland iyo waxaan ka dhacaya aan jeclayn marka aad bay uga soo horjeedaa she's an activist waxaan ku yidhi it's okay 2 week iyo bar kadib adigu exactly mise 3 week wax saasa ayay la soo hadashay inantii iskaayo bartay waxay igu tiri gabadhii maalintii aan ku baray dhakhtarkay ku jirtaa waa sakaraad waxa lagu yidhi beerkeedii baa finisha marka waad dhimanaysaa baa lagu yidhi wallaahi beerka halkaasa adiga go-ay markii baanu carano waa u tagnay markaa hospice bay guriga apartmentkeeda dhexdiisa hospice ilaa kuu naxariiso sariir loo dhigayo lagu take care gareynayo
markaa salaan sare khaliif inaabti gabadhii baan markaa u tagnay mar allaale markay gabadhii aragtay bay ilmadii soo dhaaftay iscelin kari weyday ilmadii iska oyday labadeedii waa isku oyne markaasi waxay igu tiri habari raalliga aho waan khaldanaa raalliga aho waayo there's this famous saying or Ingiriisi oo tiraahda nobody ever said I wish I was nobody ever says in their deathbed I wish I spent more time at the office qofna markuu dhimanayo yaa ma yidhaahdo waxaan jeclaan lahaa inaan waxaan jeclaan lahaa ama isku qomeeya inaanan waqti badan xafiiska ku isbeen garaynin calaa kulli xaal ujeedadu waxay tahay marka wax waliba soo dhammaadaan ee lagu yidhaahdo ayaamaad haysataa wax allaale wixii aad durbaanka u tumanaysay wax allaale wixii aad maaragtay dadkii aad ximinaysay dadkii aad maagaysay durbaankii aad tumanaysay wixii hindisihii aad ku mashquulsanayd wixii aad daba cararaysay all those things it's nothing meaningless micno ma leh marka calaa kulli xaal maalinta aan gabadhii u tegay 2 cisho kadibna way dhimatay loo ku naxariiso quruxayba iyo haybadayba dheer cad qurux badan all the things Soomaalidu quruxda ku sheegto way lahayd laakiin oo dhaba beautiful lady ilaa ku naxariiso marka calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa waa lagama maarmaan in aynu u noolaano every day of our lives mar walba in aad tahay qof dee dhimanaya anytime dead man walking or dead woman walking whatever you call it walaalayaal oo aad you forget xataa if you don't forget isku daydid to forget to dadka wanaag la jeclaatid ilaahay ka baridid inaanad cidna ka masayrin inaanad cidna caloosha uxugu hayn inaad maaragtay isku day inaad wanaag ka shaqayso qofka yar baan qofka yar baanay garanti u ahayn ka weyn baanay garanti u ahayn intuu noolaanayo waxyaabahan aad hindisayso dhan everything waxaasoo dhan micno ma leh marka calaa kulli xaal walaalayaal wax iskula hadha intaad qoomamayn lahayd aad isqoomamayn lahayd haddeer wax xeeri I know Soomaalidu passionate baynu nahay waxaynu nahay dad aad markiiba maaragtay wax uga gubta siyaabaha qaarna waxaas way ku fiican yihiin siyaabo badanna way ku xun yihiin never markaad emotional ka tahay ha soo istaagin halkaa ama qof ha caayin ama maaragtay ha isodhanin maxaa iga galay aniga waxba xeeran maaye marka arrintaasaan doonayay maanta inaan ka hadlo runtii aada hurdala-aan igu riday hurdala-aan badan igu riday de markaa waxaan is idhi ayaamahan danahaagu unbaad u gelaysay meesha ee dadkii wadnahaad caddaysay bal maanta u yaro galo maaragtay iswaaniya amba waa u baahanahay waanada God knows I do marka hees wanaagsanna waan idiin soo xulay maanta oo mar walba waaniga idin idhaahdaa talo maxaan qaadaa maanta ma jirto bal ookiyaalaha islaantu ha gashatee sugaanayga dad baa isoo qoray sax okay sax anybody wixii su-aal qabaa haddaa wax su-aalaha waa qabtaan ay jirto waad mahadsantihiin walaal ammaantana iga kala daayo ilaahay iyo rasuulkiisiiba ammaan leh sala allahu calayhi wasalam bini aadan yari waxba ammaana ma mudna isku soo xidhigna okay waa tahay dhooqaad okay okay one minute waa la ooyaya 1 minute waxa weeyaan salaamu calaykum habar yar 1 minute waa la ooyaya 1 minute waxa weeyaan waa hees ku dhufo maanta waxaan actually idiin soo qaaday waxaan doonaya inaan idinla wadaago markasta kinsi aadan oo aan aada iyo aada u jecelahay ilaahu kuu naxariiso
ayaan hees idinka soo xulay maanta laakiin bilaayo caashiq idinku ridaa kuwiin aan jacaylada haysan caashiqa ma baran weli kinsi aadan ilaw kuu naxariiso allah maxay quruxii cod la godgashay ilaahay rabbigay oo dambigayga iyo dambigii waalidiinta iyo kii islaamkaba dhaaf iyo kii ummadda nabi maxamed ilaw naastur iisoo duceeya anigana in ilaahay dambigayga dhaafo intaa waa aniga heesaya inkastoona iska naxariis ka tahay oo aan miisug la socon waxaan inoo soo xulay maanta caashiqa ma baran weli aan kofigayga ka badayso heesaha soomaaliyeed micno badan bay sitaan waa gabay waa hees waa waano waa wax badan oo isku jira weeye marka anigu waxaan u eegaa inay tahay un part of the story sida sheekada waxay tiraahdaa iyadaa ku horeysa waxay tiraahdaa caashaqa ma baran weli la mana beeninaaye la ku bogaaye inayahu la sidee meel bugtiyo gacan lagu kala bariya sidee ruuxa beer nugul jaacay ugu badheedha baaraadli ku seexdaa intiisaan anigu beytkiisaan ka jecelhayo wuxuu yidhahdaa it's very romantic wuxuu yidhahdaa dhulka meel barwaa baan ku dhex jiraa iga daaya taleefonka wuxuu yidhahdaa dhulka meel barwaaqa la oo lahay badiyo waabi dhirtu way ku badantee beryo layd si loo tago beerta gacan libaaxe ku tal beerta raaxada maku soo barayo beeriba maysu raacnaa anigaa maanta hees fiican idiin soo xulay khayr baan idiin rajaynayaa I hope you like it dhulka meel barwaaqa khaliif waa inaan aanu ilmaabtinahay khaliif faarax oo reer khaatimo ah inaabtigay gacaliye oo jooga carabaha marka inaabti mahadsanid waa fanaan intaa heesuu iisoo diraa meeshu waa nugaal anyway de waka khayr iyo sagalgenyo wow thank you walaalo thanks inadeero okay and de khayr iyo barwaaqan idin rajaynayaa intaasaan maanta doonaya inaan idinla wadaago ilaahay hayna asturo I love you guys take care